runtii jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Ingiriiska waxay ka mid yihiin runtii jaaliyadaha ugu firfircoon ha noqoto dhanka dib u dhiska dalka ha noqoto wadankan gudihiisa iyo siday u dhexgaleen bulshada dowladda Ingiriiskana doorkan hogaamineed ee qaadatay arrimaha Soomaaliya waxa keenay waxay ahayd markay arkeen dadaalkii qurbo joogta Soomaaliyeed ay wadeen anigana anoo ka mid ah qurbo joogta Soomaaliyeed waxaan bariyahan intaan joogay kula dardaarmay haddana maalinta Arbacada aan ku balansanahay magaaladan London waxay tahay Soomaali baa iska leh qof walba waxa la rabaa kaalintiisa inuu ka qaato gurigaaga saa u jeclaan lahayd inuu u qorxanaado u fiicnaado ayaa la rabaa Soomaaliya inaan maalin walba ka fikirto sidee Soomaalida qorxan ee aan rabno u heli karnaa shaki igama jiro in la heli karo shaki igama jiro inaan dariiq saxda ku soconno shaki igama jiro Soomaaliya in cageeda isku taagtay shaki igama jiro in dalka kheyraadka uu leeyahay dhinaca badda ha noqoto dhinaca ha noqoto webiyaasha dhinaca beeraha dhinaca xoolaha dhinaca macdanta iyo shidaalka oo la rajaynayo waxaas oo dhan ma hirgalayaan haddaanan annaga isu tanaasulin isu dulqaadan danta guudna aanan ka hormarin danta gaarka marka fariinta aan u faray waxay tahay maanta fursad baa muuqata waxaa muuqata dal madaxdeedii iyo shacabkii isla socdaan waxaan kula dardaarmi rabaa inay dib u dhiska dalka kaalintooda ka qaataan